السلام عليكم. soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan saddex qodob isla fahanno. saddex qodob. qodob koowaad wuxuu yahay guul iyo liibaan iyo horumar. haddaan ku horumarno midda koowaad oo ah guul, yani maanta qof walba wuxuu u ordayaa inuu guul gaaro. adduunyadan waxay ku eg tahay guushaas keliya waqti keliya ku eg tahay. tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaadano galaas inaad ka gudubto ood galaas kale u gudubto waa guul. يعني inaad galaaskan ka gudubto galaas kale aado waa guul aad gaartay. haddana sanadka dambe waxaad u baahan tahay inaad shaqeyso mar labaad si mar labaad aad guul u gaarto. qodobka labaad wuxuu yahay horumar, inuu qof walba horumar gaaro. tusaale ahaan oo kale maanta haddaan horumar ka soo qaadano taleefankan hadda aad daawanaysid waa horumar la gaaray, yani shay adduunka lagu soo kordhiyay waayo oo yani dadka ka dambeeya ay isticmaali doonaan, laga yaab dadka ka horeeyeen inay isticmaaleen. marka labadaas oo ah midka koowaad oo ah guul iyo mataqaana horumar waa wax ku eg waqti ama adduunyadan ku eg. midka saddexaad oo mataqaana qofka muslimka kaliya uu dhamin karo waxay tahay waa liibaan. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faman zuxzixa cani nnaari wa udkhila aljannata faqad faaz. يعني قفكي نار لغا كوريو جننا لغيو وليباني. يعني قولش اما ليبان تقبطه وقفكي مسلم كاه وجنة تغي. مركا ان ودا شقيسانو wax ugu badan ama ugu weyn qof walba oo muslim ah ama gaayada uu isleeyahay gaar waxay tahay halka ugu dambeeyso ah janno inuu helo. marka aan ku dadaalno insha Allah taala labada kalena adduunyadan yani gacantaada bidix ku qabso, aakhiradaadana ku qabso gacantaada midig. marka ku dadaal mar walba sidaad ku noqon lahayd qof liibaanay ama guuleystay ama horumar sameeyay. aad iyo aad u mahadsantiin.